gudoomiyaha degmada Duruqsi oo kamida deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer Axmed Cabdilaahi Gaabyoone oo maanta telefishinka caalamiga ee Somali News TV waraysi gaar ku siinayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee deegaankaasi isagoo gudoomiyuhu ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii barakacyaasha ah ee saameysay abaartii adkeyd ee dalka ka dhacday sidoo kale Axmed Cabdilaahi Gaabyoone gudoomiyaha degmada Duruqsi waxa kale oo ka hadlay dhibaatooyinka ugu adag ee maamulkiisu la kulmo taasi oo ah dadka kiisaska kala duwan ka geysta deegaankaasi kuwaasi oo soo kala gudba xuduudada kala duwan ee Somaliland iyo Itoobiya iyo sidoo kale mukhaadaraadka khamriga kaasi oo uu sheegay inuu farabaan ku hayo deegaanada hoos yimaada degmada Duruqsi waxaana gudoomiyaha daladiisii kamid ahaa baahiyaadka aasaasiga ee runtii waxna ka dhiman yihiin waxaan gacanta ku haysaa oo runtii waxaan oran karaa xagga tacliinta ma xuma xilada degmadu laba boodhan bay leedahay secondary oo ka jira oo oran karo waxa ku jira secondary-ga ciyaal gaaraya ilaa iyo 8 arday baa ku jira labada boodhan runtii aad iyo aad bay waxay kala wanaagsan tahay waxa jira qogaa ka dhiman xagga adeegyada loo oran karo biyaha oo runtii imka way jeedaan degmadu waqtii guga biyada iyo meeygirin baraagaha waa baraagii ka horeeyay 60kii ka horeeyay ilaa iyo soddonki runtii biyuhu maanta way jeedadahay xagga biyaha xoogaa ka jira baraagahooda waa kuwii hore ay gaboobay afartanka ahaa oo aan weel badan qaadin waxaa jira wax dhibaataa dad barakacayaala oo imika 2 sano oo soo fadhiistay oo meel ay ku noqdaan waayay aan qabaaro waxa ka noqday waa wax yar waxa kale meesha ay degan yihiin iyagoo tuulooyinka ku kala qaybsanaan diisayga iyo 14ka inta ugu badan waxay taalaa Duruqsi iyo meesha la Ingiloley iyo Bilcilla iyo Harada ayay taalaa oo dadkaas oo fadhiyaan dabadna waanu qaybinay markaan caafimaadkoodiisa aan u daryeelo garan weynay tuulooyinka kala biir baan ku dhigaysaa aan ku hayno way dhismo ma hayno guriga hoydaan ma hayno halkaasii waa ceensadeen tuulooyinka waa ceensada oo kala biira runtii waxaan qabaa rajada imkana aad u wacan tahay oo xagga dawladda aad uga wacan tahay oo sidoo hore ay ka beddelan tahay moodayma dawladdu oo imka ay hay'adihii aad u soo furmeen oo gobolka way ku yaraayeen imka inay ku badan yihiin weli si deeqooda ma soo gaadhin weli deeqooda aad ma soo gaadhin dadka halkaa degan 3 jeer baa xisii markaan runkaaga sheekay waxa weyn deegaanka tuulooyinkii iyo gacmadii baa waxay soo galeen magaalooyinka soo galeen gacmada iyo baraagii bay soo galeen dhibta ugu weyn ee taagan waa taa way qofku markii hore wuxuu calaamadsaday afarta koonada 2 mayl buu barkadiisa u calaamadsaday gacankiisana 5 mayl buu waday waa dhibaatooyinka ugu weyn ee imkan haysta oo aan oran ka ciidan aan ku caburinaana ma jiro ciidan aan ku caburino waa yar yahay oo degmada Afraskari baa jooga macataliyaha talabaad waa xagga Itoobiya waxba ka dhacaya xagga uu soo cararaya ama xagga iyaga wax ka dhacayaan xagga soo cararaya waa isla shaqeynaa waa isla soo qabanaa tan ugu weyn waa taas oo naga ximay gaadiidka iyo ciidanku waa ay naga yar yihiin toban meel ka boqo waa 5 tuulay leedahay oo xadka mid qula askari ma joogo inta waxaan ku haynaa xarunta Duruqsi ku haynaa askari ma joogo runtii istabta xiro oo naga xidhaan ma joogo iyagii cadow kalaba ashaanaga xidhaan ma joogto waa dhibaatooyinka ugu weyn waa kuwa degmada Duruqsi oo kamida deegaanada waaweyn ee hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa ku taala xuduudka Itoobiya iyo sidoo kale Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.